shay aan jeclahay aan taageero hadalkeega codkarnimadeeda heesaheeda inaan ku soo dhaweeyo madaarka Hargeysa waxaan leeyahay walaal Hargeysa ku soo dhawo insha Allah inaan burcan ku wadi doono hadii kolley magaalada qabow iyo xilligan la soo kicino intiina soo qof soo baxday hadii ay galab ama duhur ku soo beegmi lahaydna waxaan u maraynaa ciid inay dhaqaaqi lahayd walaasha farxiyo soo dhawo baan leeyahay iyo Eglan Saalaxo mataanteedii iyo garabkayga joogtay iyadana soo dhawo baan leeyahay wax yar ka soo horeysay soo dhawo maanta qofkaan si badan ma jiro waxa isugu yimaaday saxaafadii oo wada dhan wariyayaashii abwaaniintii iyo inta de taageerto fanka oo dhan maanta airportkani wada taagan yihiin aniyo mataanteeda Sagal Mustafa Xasan Nuur aniguna de habeen baan ka soo horeeyay waxaan lahaa bal farxiyo madaarka isku sii taagan marka waxaan ku leeyahay markii la soo dhawo magaalada Hargeysa fankii hooyga iyo murtida iyo madadaalada intaba maanta isumaantigeennani waxa weeyaan quruxda badani fadhiyaynu soo dhaweynaa sidaynu caanka ku ahayn reer Somaliland anigu welcome to Hargeysa ku oran maayo welcome to Somaliland doona ku sugan airportkan iyo soo dhaweynta balaaran soo dhaweynna fanaanadeena inaan jecel waxa laga garanayaa shantii baan joognay madaarka sidaas uma waxaanaysa sheekadu marar badan oo kala soo noqon walaashay faraxsanahay waxa way safaradu iskuma jiraan safarkan waa iga duwan yahay safarada kale aan adduunka u aadi jiray waxaan joogaa Somaliland gaar ahaan waxaan joogaa caasimadda Hargeysa hamigaygu wuxuu ahaa inaan imaado ilaahay maanta suuro galiyay waxaan dhammaan u mahad celinayaa fanaaniintayda abwaaniinta shacabka dadka ay wada jecel ee walaalahay ah ee aan jaceylkooda halkan ku imid waxa waaye lama soo koobi karo farxadayda waa idin jeclahay subax aalasayn ku soo beegmay flight galaba waan waayay saasoo tahay waxa waaye wax halkan dhooban waa dad jecel oo ii soo kalahay marka waxa waa war leeyahay wadaynaahe waxaan leeyahay taageerayaashayda especially taageerayaashayda reer jamhuuriyadda barakaysan wax badan waxay tireenaa fadxiyayda afgabaadsiga iska daawaan imaanaya beenta weeyna meedan imaanayn dhukura dheema waa joogtaa kabta xaaji in the house waxay ka shaqeyntaa Hargeysa waa isla joognaa love you guys